waxa ku talinayaa si degdeg hadii mataqaan barnaamijka xal looga gaarin sharci darrada ayaa sharci noqon doonto aan gacantiida ayaa sharci ku sameeyay dawladdu leeyahay gacantiida sharci ku sameeysto ayay gaaraysaa waana ku sameeysanaa sababtay tahay in ma la dili bil dhan mootan ali waxba ka soo qaad ma ma cadda ninkii inuu dili ma caddo soo cadayso inta tag qareen raadi noo taay soo qor waxaan loo joogan leegal waxaas wax daalis waa waxay anfacan maaha ninkaas nimankii dili hay keenaano hay gal xaajoodaan hay keenaano fiirka ay soo taagan ma diideen sharci darro ayaga ku haysto ayaga gadaal marsaday ayaga u dhimana aabiisa u dhimana weelkiisa u dhimana ehelkiisa u dhimana haduu ilaahay anina ma taqaan isqadima noqona haduu ilaahay ninkaas oo raadin anu uga maqaayad kale ma cali maxamed kale ka maqlo xarun ka maqlo shakhsiyan uga maqaayay Cabdirasaaq waanu uga maqaayay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ahaa aabaha dhalay Xuseen Cabdirasaaq Xuseen oo ahaa wiil bajaadlaha oo dhawaan lagu dilay magaalada Beledweyne ayaa dalbaday inuu helo xaqa wuxuuna ku eedeeyay odayaasha dhaqanka beeshiisa qaar ka mid ah inay hortaagan yihiin inuu helo xaqa ka maqan wuxuuna dhaliil u jeediyay odayaasha hormuud ku ah beeshiisa waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen yarkii anigu bajaadada maalinta laga dilay ayaan ahay oo mataqaana oo ninkii dhalay ahay biisa ahay marka meesha waxay cadaatay ninkii waa xiran yahay leeyri haddana ninkii soo cadaysay mataqaana waxba la galay cali madaxweyne mataqaana inuu kala fadli badan yahay ayaa meesha ka cadaatay sababtay tahay in cali madaxweyne waxa cali ama daaro cali wuxuu dilo degdeg lagu helayaa in xarun wuxuu dilay mataqaana la arki ma ay dhinto noqonaya laba cali kale mataqaana walaalihiin ayaa cadaatay oo la sheegay oo mataqaana laba yihiin caligan kalena oo gooni ka yahay dadka Soomaaliya waxay tiraahdaan mataqaana dadka waxa way walaal way yiraahdaan walaal waxa la yiraahdaa mataqaana dadka habarta soo dhashay la yiraahdaa marka anigu waa mataqaana waa idulmiyeen cali madaxweyne idulmi ninka la yiraahdo nabadoonka uu weynaado waa idulmiyeen waxay anigu soo duug ee geey mataqaana hal soo duugo ninkii waa lahaa xabsiga lagu soo been la sheegay in xabsiga laga soo bixin ma la keenin ninkii soo duuga la yiraahdo waa duugi intaas oo dhib ay gaartay nabadoonka cali madaxweyne gaar ahaan nabadoonka cali madaxweyne asaa ku taliyo cali madaxweyne mataqaana kala fadli badnaado oo mid mataqaana ay dhinto noqoy midna dad oo dhinto uu noqoy asaa ku taliyay asaa mataqaana yeelay nabadoonada gibad mataqaana way ka wada qayb qaateen in ay dulmiyaan ku tala galeen ilaahayna raali kama aha cali madaxweyne shaqo uu isku leeyahay ma jirto xarun mataqaana kulli waa la iska dilaa waa la dhibaateeyaa wax meesha ku jiro maaha marka waa aragnay dhibka jira waa aragnay maxkamadda meesha sheekh loo dacwoodeeyay oo dacwo maani aadi maani maxkamadda waxa Hirshabeelle leedahay gaar ahaan mataqaana mid dabageeda xukumo dabageeda mataqaana iskala xasan Muuse iskale oo dacwo tigi ma aadi ma in xabiga soo bixin mataqaana way cadahay midda labayso waxa noqonaysa cali madaxweyne kala fadli badan yahay oo midna mataqaana darajo leh mataqaana meel laga soo qaad oo leh midna oo meel ka soo qaad lahayn ayaa mataqaana dhacday mataqaana ugu baahna ma mar la 2-3 hore waa u dhacday wax la og yahay marka waxa ku talinayaa si degdeg hadii mataqaana barnaamijka xal looga gaarin sharci darrada ayaa sharci noqon doonto aan gacantiida ayaa sharci ku sameeyay dawladdu leeyahay gacantiida sharci ku sameeysto ayay gaaraysaa waana ku sameeysanaa sababtay tahay in ma la dili bil dhan mootan ali waxba ka soo qaad ma ma cadda ninkii inuu dili ma caddo soo cadayso inta tag qareen raadi noo taay soo qor waxaan loo joogan leegal waxaas wax daalis waa waxay anfacan maaha ninkaas nimankii dili hay keenaano hay gal xaajoodaan hay keenaano fiirka ay soo taagan ma diideen sharci darro ayaga ku haysto ayaga gadaal marsaday ayaga u dhimana aabiisa u dhimana weelkiisa u dhimana ehelkiisa u dhimana haduu ilaahay anina ma taqaan isqadima noqona haduu ilaahay ninkaas oo raadin anu uga maqaayad kale ma cali maxamed kale ka maqlo xarun ka maqlo shakhsiyan uga maqaayay Cabdirasaaq waanu uga maqaayay Cabdirasaaq oo ka maqaayay dadka la dhasho ka maqaayay Cabdirasaaq cid uu ka maqaayay haduu ilaahay waan raadina dhawaatay waa raadina ani hadda laga bilaabo sharci diiday sharci darro gacanta ku qaadanaya salaam